xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug oo dhawaan sheegay in xilka ka qaadeen madaxweynaha Galmudug mudane xaaf ayaa eedeymo u soo jeediyay mudanayaal ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay cadaada u joogay xalinta xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda sare ee Galmudug. xildhibaanada ayaa sheegay in mudanayaashan cadaada yimid aysan wax dhexdhexaad ah ka ahayn arrimaha ka jira Galmudug isla markaana hal dhinac ay la safteen. war-saxaafada xildhibaanadan ay soo saareen ayaa warfidyaalka waxa uu akhriyay Axmed Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug isla markaana xildhibaanadan ay u doorteen guddoon ku meel gaar ah 26 bishii 9aad 2017 waxaa soo gaaray caasimadda ku meel gaarka ee Cadaado senataro iyo xildhibaano Baarlamaanka Federaalka ah kamid ah kuwaasoo aysan u dhamayn beelaha ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Galmudug. mudanayaashaasi waxa ay sheegeen in hadafkoodu yahay xalinta khilaafka Galmudug. sidaa daraadeed waxaan cadeynaynaa inay u yimaadeen halkan hurinta colaad ka dhacda Galmudug taasoo ka muuqata talaabooyinka ay qaateen iyo go'aanada ay soo saareen oo halka dhinac ah intii ay joogeen Cadaado. haddaba waxaa muuqata inay meel ka dhac ku sameeyeen sharciga Galmudug yihiin qaswadayaal ka soo horjeeda dowladda Federaalka rabana inay ka dhigtaan Galmudug meel ay kala diriraan dowladda Federaalka ee Soomaaliya. sidaa daraadeed waxaan ku baraarujinaynaa reer Galmudug arrimahan soo socda. qodobka koowaad, Galmudug waxay leedahay qaanuun ay wakiil uga yihiin baarlamaankoodu. hawl kasta oo sharci ahaan u qabtaanna waxa ay mudan yihiin haddii wax laga tabanayo inaan qaanuun ahaan lagala xisaabtamo la iskuna qanciyo sharciga maadaama uu sharcigu ka sareeyo qof kasta. taasna ma aysan samayn mudanayaasha yimid Cadaado iyagoo ka doorbiday xeerjajab dano gaar ah ay ka lahaayeen mana aysan la kulmin xubnaha baarlamaanka Galmudug. qodobka labaad, waxay ku guul dareysteen in madaxda loo haysto afduubka 25 bisha ilaa 29 bishii 9aad 2017 oo maanta ay xubnamadooda u soo celiyaan iyagoo war-saxaafadoodkooda ku sheegay inay gardaran yihiin madaxda afduubka loo haysto taasoo ah meel ka dhac ku ah qaanuunka bini'aadanimada ee caalamiga ah. waxaana la wada ogsoon yahay in madaxda afduubka loo haystaa ay u sheegeen inaysan wada xaajood geli karin iyagoo aan xor ahayn. waxayna muujinaysaa inay garab siinayaan madaxweynihii xilka laga qaaday mudane xaaf. qodobka saddexaad, waxay isku dayeen inay colaad ka huriyaan Galmudug taasoo caddayn ay u tahay xiritaanka ayraboorka degmada Cadaado 28 bishii 9aad 2017. hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa weli waxaa ka dhex taagan khilaaf xoogan walow xildhibaano ka socda labada aqal oo maalmihii ugu dambeeyay Cadaado ku sugnaa aysan wax xal ah ka gaarin xalinta xiisadahaasi. mubaarak maxamuud sheekh aadan telefishinka caalamiga Universal Cadaado.